السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxaa la yidhahaa jaamac axmed idle waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrintan iminka halkan laga hadlayo oo ku saabsan xukuumadda maanta joogtay arrimaheeda. waxaan sheegayaa isagoo hadalku gaaban xukuumad wanaagsan oo sharaf leh iyo madaxweyne wanaagsan ayaa ina soo maray iminkana inoo jooga insha allahu tacaala. waxay tahay oo aan soo qabanayaa in lacagtii gibaarka ahayd uu ka bilaabay lacagtii maxaan ahaayey deynka ahayd ee lagaga tegey ee la doonayay inaanay mar dambe wax dhaqaaqin ee uu markiiba la bixiyey in ciidamadii hubka darajada la siiyey waddada cajiibka ah ee halkaa ka dhacday alxamdulilah rabbilcaalamiin. arrimahaas oo dhan iskuulka institutka ah ee iminka la furay wax yacni wanaagsan ayaa maartay ilaahay ha odaal celiya baan leenahay. wasalaamu calaykum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سلام كدب عن مقاعي واحد يا برا وقف دقال وحن أصبح إنك إن هالكن أن كيد هذا دور قضب أو مهمة كنتي إلهي مهدلي إلهي مهدلي وحين لا يوم هالنقيا نبض ما تسمع ما لدى حيصته نبض روح كتي من قون حيالد يكرتي يدولدين كتي waxaan mahadnaqayaa runtii dawladdu ugu mahadnaqayaa horumarka waddanka ay ka samaysay ee ay ugu horeyso xagga waddooyinka maanta laga bilaabay loo yacdo ilaa ceer gaabo dariiq waa isku furaya hargeysa ilaa berbera ilaa sheekh runtii waa wax ilaahay lagu mahadnaqo weeyaan. xagga waxbarashada maasha allah tabaaraka allah waxbarashadu waxaa la moodaa maanta in ay hore ugu kacday heer aad iyo aad u sarreeya ha noqoto xagga farsamada gacanta oo maanta dugsigii burco maxay farsamo gacanta lagu hayo runtii maanta meel fiican u marayo ha noqoto dhiirigelinta la dhiirigelinayo in la furo dugsiyo farsamo gacanta ha noqoto waxbarashadii caadiga ahayd runtii wax ilaahay loo mandaqoyn hadday noqoto xagga maanta maxay infrastructure la dhisay maanta wasaarad aan maanta lahayn xafiis iyada u gaara oo ama dabaq ama loo dabaq ma jirto runtii wax ilaahay lagu mandaqoyn. xagga horumarka dhaqaaluhu maanta halku marayo wala yaqaana sicir barakana hawshiisa imika waa lagu jiraa insha allah karim waxaana dawladdu xooga saartaa sidii loo jibin lahaa alaabta loo jibin lahaa ee alaabtii uu socon lahaayeen sicirku socon lahaayeen dowladkii la xakameeyay waxa ku xiga haween alaabtii iibka la xakameeyo runtii dawladda aad baan ugu mahadnaqayaa musabixin waxaan ilaahay ka rajaynayaa markuu meesha qabto halka ay meel ka si fiican u sii mariyo. bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina maxamed wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. maanta waxaan doonayaa inaan halkan ka tilmaamo oo aan hambalyeeyo iskuulka farsamada gacanta ee burco oo run ahaantii ah arrin loo baahnaa. waxaan leeyahay dee waxa weeyaan waxqabadkii dowladda uun oo sii soconaya. dowladda wax badan bay qabatay oo aan imika haddaan israahdo dib bilow maanta oo dhan aynaan ka dhammaanaynin oo ay ka mid yihiin haddii maxay tahay aynu dib u noqonno markii madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaayo uu qabsaday xukunka markii ugu horreysay halkuu waddanku taagnaa uu riyaala kaga tega weynu ogeyn khasnad maran waxyaaba badan oo dhawna oo waddanka loogu talagalay dee dowladaba ama garan sii jirin. alxamdulilah waa kadib soo kiciyey wuxuu ku bilaabay kale lacagtii buu bedelay darajadii ciidamada iskuuladii firiya budgetkii saru loo qaaday hay-adaha iyo ma garanaysaa wasaaradaha dowladda oo dib habeen lagu sameeyey waddooyinkii oo aad iyo aad wax looga qabtay oo u dambeysay maxay tahay waddada ceergaabo imika dhammaadka ku dhow oo in badan dee loo taamayey. waxaa kaloo jirta iyaduna ma garanaysa lacagtii laga bedelay dee burco waxyaaba badan wadahadaladii uu la furay khaatumo iyo ma garanaysa gobollada bari oo maanta dee ku dhow dhammaad. waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan waxyaaba loo tirinayo dowladdan uu madaxda ka yahay axmed maxamed maxamuud silaayo de halkaas ka saama qaadi doona insha allahu musabixina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا waxaa la yiraahdaa Yaasiin Cabdillaahi waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta oo ay joogaanba. waxaan ka hadlayaa waxqabadka dawladda maanta inoo talisa ee waddanka maamusha ee hoggaanka inoo ah waxqabadkeeda qofka indhaha qaba
waa uu odhan karaa waxbaa la qabtay laakiin qofku kii indhaha la'aa hadduu qalbigiisu wanaagsan yahay u qiraya xataa isagudiisu wax la qabtay laakiin ummadda inta xumaanta wadda ele waxba lama qaban waxbaa la cunay war waxaa ka bax waddanka waxa aad u qabanaysid ee khayrku ku jiro ee wanaagsan ka hadal ee silmiga iyo salaamku ku jiro ummadda fidnada lama dhex dhigo dadkan waa meel kaliya 26 sano ayaa ummaddan one leader lahaa ninka maanta qaybin wada ee lowxun baa la cunay iyo waxbaa la leexsaday war waddanku shalay maalintuu qabtay odagu siilaanyo maalintuu shalay qabtay dalku anigu waxaan aaminsanaa dadkii lahaa haddaynu qori isu qaadanna anigu shakhsiyan waan aaminsanaa dabban waxaan ka qabaystaas maantana wallahi haddii laygu akhriyo shadaadiin inaan layga dhaadhicin waa shakhsi xun sababtoo ah indhahan wax ku arkay ma tegin waddanka mana dhoofo 10 sanana ma tegin laakiin miidiyuhu marna run buu sheegaa marna been buu sheegaa anigu habeen walba warka maba gafo qaranka telefishinka Somaliland habeen walba waan daawanaya anigu every single night ninka yiraahdo waxba lama qaban that's sick guy waxaan u sanayaa midnimadeenu waa unit in aan maxay ahayd waxayna qaybinaya la iska ilaaliyo هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعي واحد لين هذا عبد داهر قضح بالين هذا والسلام يا أمة الإسلام كوردن كرهان أمة الصومالي لان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت كبعدي ونسود ويننا ونهمبلينا ونكفر أحسننا هاي بلوغا وددا عرقابو يسيدو سعوتو وودها البولاء ومدة اسكو حريسة وحويان وحيابها تاريخ ذا أقل دونه دولة ما أنت تشوكته يا أحمد محمد سيلاني وهجامينيو الآدي أضبانو هنبليننا إن شاء الله هنا لما يستر ميسا هذا ما ممكن كل لما يستر ويدو بلاوينا ويكون لما يستر ميسا كمصبيحي وحن كلو هنبلينيا لسيتانكا iyo qabyatirka iskuulkii Burco farsamada gacanta iskuulkaas oo iskuulkii aan ka baxay Technical Institute of Burco aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in la furo dawladda hay'adaha dhisay iyo shacabka ka qayb qaatay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan intaa uga talaabayaa farmaajo horu inoo soo maray dibna way inoo soo marayaan noociisu Soomaaliya dooratay inama khuseeyo haka gurigiisa soo fiiqo gurigiisa ha soo fiiqo wax kale oo inaga khuseeya ma jiraan waa ummadda Soomaaliyeed inay halkeeda ku wanaagsanaato ilaahay baan uga baryaynaa laakiin anagu dawlad baanu nahay maamul baanu leenahay Soomaaliland baan la yiraahdaa nama khuseeyo dadka u mashxaradayana waxaanu leenahay waxba Soomaaliland ma yeeli kartaan intaa waxaan ku darayaa dawladda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland waxaan halkan fariin uga dirayaa maamulka Soomaaliland iyo dawladda wasaaradda warfaafinta dadka ka shaqeeya waa in indha gaara loo yeeshaa fiiro gaara loo yeeshaa rikoorkooda la hayaa ya maaha inay maalin walba inay yarsu dooro u hadlo sidoo kale xildhibaanada dadka shacabka ah ku fadhiya magaraysa codkoodii iyo dadka xilalka haya ee iska hadlayaasha noqday waxaanu leenahay xeer qabto waa in la helaa ninna sharciga kama weyna dalka iyo dadkana ha loo tudo